waxaan tagay magaalada Addis Ababa, magaalada Nairobi, magaalada Qaahira iyo magaalooyin kale oo caalamka ah. waxaan la yaabay oo aanan wali jawaab u helin dhammaantood magaalooyinkaas waxay ka siman yihiin in Soomaalidu ka degto meelaha ugu foosha xun ee ugu wasaqda badan. inta aanan idin tusin cadeynta waxyaabaha aan ka hadlayo, sida aragtaan maanta waxaan saaranahay diyaarad. haddaba soo raac si aad igula dalxiisto safar gaaban oo aan ku gaaray magaalada Addis Ababa, wadanka Ethiopia. inta aan sii saaranahay diyaaradda waxa kaliya oo wax la sheego la xusi karaa cuntada aan dhadhanka lahayn ee lagu sooray rakaabka diyaaradda. buskud, digir la dalacay, batar iyo rooti baan oo la bixiyay iyo bariis aan shishiid lagu dalacay. qofkii baan dabcan cunto ayay u tahay mise istaahilin wax la cuno. biyaha ka dhalanaya dhibcaha roobka hooraya iyo sharqanta ka soo baxaysa geedaha fooda istaray, codad kala jaamka ah iyo jabaqda xasiloonida ku beeraysa laabta. waxaan ka maqlayaa balakoonka aan ku cabayo bunka sida sare loo solay ee hoteelkan aan deganahay. aroorta hore hoteelkan waxaa la sii diyaariyaa quraac noocyo badan leh, ballankuna waayeysan gacantaada ku ciilin. micnaha waa buffet. haddaan si kale kuu fahamsiiyana cuntada waxaa lagu sii diyaarshaa miiska, kadibna adiga ayaa saxankaaga qaadanaya oo ka guranaya wixii kaa qanciya. intii aad doontana waad ku noqon kartaa. markaad u soo baxdo wadooyinka waaweyn ee magaalada, baabuurta, tareenka iyo dadkuba waxay isku dhex marayaan si nidaamka la ilaaliyay. waxaad arkaysaa in si weyn loo horumariyay dhismaha wadooyinka. waxaan ka helay zebra crossing-ka iyo traffic light-ka. macnaha waxaan ka wadaa samaha faraha iyo sida kan soconaya iyo kan gaariga wadaaba u ilaalinayaan una tixgelinayaan. waxaan isweydiitalow caasimadeenu goorma ayay halkan gaari doontaa. waxaanse isku canaantay kolley sida ay ila tahay dadnimo idinma dheeree malaha nidaamka oo inaan ilaalin iyo maamul xumo ayaa halkaas idin dhigtay. inkasta oo ay maanta naga horeeyaana waxaa nafteeda ku qanciyay in ay jiri doonto maalin aan gaari doono korna usii dhaafi doono. cuntadu waa waxyaabaha ugu horeeya ee sida gaarka u dhammaystira xusuusta dalxiis mudnaantiisa leh. waxaan tagay maqaayad Soomaalida magaaladan ku nooli si weyn u xiiseeyaan oo Yemeniyiintu leedahay. kama soo helin waayo waxay iga soo gadeen cunto qabow, service-kuna wuxuu ahaa mid aad u liita. waxaase xusid mudan magaalo kasta oo aad tagto wadankay doonta caalamka ha noqotee, waxaa hubaal ah in aad ka helayso maqaayad iyo community Soomaaliyeed. halkan Addis Ababa ahna waxaa ku nool 100,000 Soomaali ah. cuntadii asalka ahayd ayaadna ka heli kartaa. pasta, macaroni, chicken lagu saraaday iyo cabitaan macaan ayaan ka cunay mid ka mid ah maqaayadaha Soomaalida ah. inkasta oo ay cuntadu ahayd mid aad u macaan, si fiicanna loo diyaarshay, haddana maqaayaddu waxay ahayd mid ku dhex taalla xaafadda wasaqda badan ee Soomaalidu ka degto magaaladan Addis Ababa. Pole Makail oo ah xaafadda ay degto Soomaalidu, intii aan dhex maray Addis Ababa oo dhan waxaan dareemay in ay tahay meesha ugu foosha xun, ugu wasaqda badan, uguna liidata. sida aad ka aragtaan muuqaalkana waa meel bahdilan keliyana ma ahan Addis Ababa. haddii aad tagto Islii oo Nairobi ah ama xataa wadamo badan oo caalamka ah oo xataa qaar Yurub ay ku jiraan, waxaad arkaysaa in dadkeenu ka degaan uun meelaha ugu dayacan. malaha faqriga ayaa sabab u ah, malaha dadkeena ayaan qab lahayn, malaha raqiiska ayay ku raaceen, malaha wax kale ayaaba jira. kolley waan ka yaabay anigu, jawaabna umaan helini. adiga maxay kula tahay? lacagta wadankan oo runtii ah mid iyana yaabkeeda leh iyo talooyin aan ka diyaarshay iyo weliba sheekooyin kale oo xiiso leh waxaad ku arki doontaan muuqaaladeeda soo socda. fadlan la socda muuqaaladeeda dambe. nabadeey.